وعنا wanaagsan idilaanshin madawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aan xilligan idin haynana waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay Mareykanka oo ku soo biiray dagaalka kooxda Daesh ee Soomaaliya kadib duqeymo xooggan oo uu ka fuliyay buuraleyda gobolka Bari maxaa ka jira in duqeyntaasi lagu dilay hogaamiyaashii kooxda Daesh ee Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland oo si la yaab leh isugu qabsaday sheegashada cidda Mareykanka kala shaqeysay duqeymaha gobolka Bari uu ka fuliyay haddaba miyay dowladda federaalka iyo Puntland siyaasadeynayaan dagaalka argagixisada maadaama khilaaf siyaasadeed uu ka dhaxeeyo labadaas dhinac wararka kale waxa kamid ah Kenya oo soo ambabixisay hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo madaxweyne Xasan Sheikh oo laga sugayo go'aan culus xilli talaabooyinka Kenya lagu tilmaamay xadgudub weyn iyo villa Soomaaliya oo ka fakaraysa in ay dib u dhigto furitaanka baarlamaanka sabab la xiriirta muushinada la karkarinayo ee ka dhanka ah xukuumadda ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre qodobadaasi ayaanu ku faahfaahin doonaa barnaamijkeena insha Allah fadlan daawada muuqaalka like saar sidoo kale si share garay la sii wadaag saaxiibada kale ee kugu jira baraha bulshada aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin aynu ku bilaawno wararkeena dowladda Mareykanka ayaa si toos ah waxa ay ugu soo biirtay dagaalka kooxda Daesh ee ka socda buuraleyda gobolka Bari ee deegaanada maamulka Puntland war-saxaafadeed ka soo baxay taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaan Africom ayaa lagu sheegay in duqeymo xooggan oo diyaaradaha droniska ee iswada ay Mareykanku ka fuliyeen deegaano ka tirsan ee buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari Mareykanku waxa uu sheegay in duqeymahaasi lagu bartilmaameedsaday xubno sarsare oo ka tirsan kooxda Daesh ee markaasi ku sugnayd halkaas waxaa la sheegayaa wararku in xubnaha la dilay ay yihiin kuwa ajnabi ah isla markaana ahaa hoggaanka sarsare ee Daeshta Soomaaliya Mareykanka ayaa waxa uu tilmaamay in khasaaro dhinaca rayidka ah uusan jirin arintaasina taxadar weyn ay markaasi ka sameeyeen haddaba Donald Trump madaxweynaha Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in isaga uu amray duqeymaha laga fuliyay shalay deegaanada Puntland ee dhinaca cirka ah waxaana uu tilmaamay in kooxda Daesh lagu bartilmaameedsan doono Soomaaliya sida uu sheegay Trump oo war markaasi soo dhigay bartiisa X loo yaqaan hadda X horey loo oran jiray Twitterka Trump waxa uu sheegay in kooxdan joogitaankeeda ay dhibaato xoogan ku tahay danaha Mareykanka isla markaana hadda wixii ka dambeeyo godadka loogu gali doono sida uu tilmaamay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in duqeymaha la sii wadi doono Mareykankuna uu xoojin doono duqeymaha kooxda Daesh wararka waxay sheegayaan in ninka la dilay horjoogaha uu ahaa kooxda Daeshta Soomaaliya uu ahaa nin Ciraaqi ah isla markaana horey askar Mareykan ah ugu dilay gudaha wadanka Ciraaq Mareykankuna arintan uu markaasi si aad u doondoonayay Mareykanka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in halkaasi lagu burburiyay saldhigyo kooxdu ay ku lahayd waxaana la tilmaamay in diyaaradihii duqeymaha fuliyay ay dhulka ku soo degeen isla markaana halkaasi ay ka qaadeen raad muujinaya dadka la dilay khasaaraha inta uu la egyahay iyo sida ay wax u dhaceen intaba taliska Mareykanka ee Africom waxa uu sheegay in faahfaahin dheeri ah uu bixin doono marka ay soo dhamaadaan baaritaanada ugu dambeeya ee lagu sameynayo howlgalkaasi وحقاق dhinaca kale dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland ayaa waxa ay u muuqdaan kuwa siyaasadeynaya dagaalka kooxda Daesh kadib warar tiro badan oo ay xalay soo kala saareen dhinacyadaasi dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in howlgalkaas Mareykanka ay iyadu ku saaciday isla markaana xogta iyo waliba wax waliba oo ku saabsan howlgalka ay iyadu markaasi siisay Mareykankuna sidaasi uu ku fuliyay duqeymaha laakiin Puntland ayaa soo saartay war kale oo kaas aad uga fog iyada oo sheegaysa in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya wax door ah iyo wax kaalina in aysan ku lahayn howlgalka halkaasi ka dhacay isla markaana howlgalkaas ay uga mahad celinayso hadii Puntland ay tahay dowladaha Mareykanka iyo Imaaraadka oo ay sheegtay in ay halkaasi ka fuliyeen duqeymo dowladda federaalka iyo sidoo kale Puntland khilaaf ayaa ka dhaxeeyo waxaana moodaa in khilaafkooda xitaa imika lagu siyaasadeynayo ee dagaalka argagixisada madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud Twitterka ayuu ku hadlay Saciidani sidoo kale luuqadaha Ingiriiska ay dhammaantood ku wada hadleen markii af Soomaaliya la iskala tagay waxaana muuqata in mashruuc laga dhigayo howlgalka Puntland ay ku jirto
dad badan oo arrimaha siyaasadda ka faallooda ayaa sheegaya in tani ay tahay mid markaasi wejigabax ku ah dowladda federaalk ah ee Soomaaliya, laakiin Mareykanku warkiisa waxa uu ku sheegay in howlgalkan uu ka kaashaday dowladda federaalk ah ee Soomaaliya maadaama uusan markaa dafiri karin dowladda federaalka. sidaas oo ay tahana Puntland waxay sheegaysaa in howlgalkaas ay uga mahadcelinayso kaliya Mareykanka iyo Imaaraadka, maba aysan soo hadal qaadin dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. wahagaag Kenya waxa ay ku dhaqaaqaysaa tallaabooyin lagu tilmaamay in ay yihiin kuwo xadgudub ku ah madaxbannaanida Soomaaliya. Shalay ayay soo ambabixisay mar kale hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe, waxaana ay dib ugu soo celisay magaalada Kismaayo. dowladda federaalka ee Soomaaliya si gaar ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa laga sugayaa in uu qaado tallaabooyin la xiriira sidii uu wax isaga dhihi lahaa dowladda Kenya. Axmed Madoobe ayaa hadda dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo, waxaana hadda uu qorsheynayaa in uu ka shaqeeyo xafladiisa caleemasaarka uu doonayo inay ka soo qayb galaan madax kala duwan iyo waliba sidoo kale siyaasiyiin ay ka mid yihiin siyaasiyiinta markaasi reer Kenya. haddii ay ka soo qayb galaan siyaasiyiinta reer Kenya, waxa ay ka dhignaan doontaa in xaaladdu markaasi faraha ay mar kale kasii bixi doonto dowladda federaalka ee Soomaaliyana mar kale barida dhulka loogu dhufanayo. ugu dambeyntiina Villa Soomaaliya ayaa waxa ay ka fakaraysaa qorshe ay ku doonayso in ay ku baajiso oo ay markaasi dib uga dhigto furitaanka kalfadhiga 6aad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo 2 bilood ee la soo dhaafay isagu fasax ku maqnaa. Villa Soomaaliya ayaa aad baqdin uga qabta mooshinka la karkarinayo ee la doonayo in lagu rido xukuumadda uu hogaaminayo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre. wararku waxay sheegayaan in Villadu ay aad iyo aad uga fakarayso arrintan sidii ay u maareen lahayd isla markaana ay uga dhex bixi lahayd. xildhibaano 100 ku dhow ama ka badanba ayaa la sheegay in ay diyaariyeen mooshin ka dhan ah Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo ku doonayaan in ay ridaan mar haddii la dhaafo kalfadhiga 6aad amaba intiisa ugu muhiimsan la gaaro. waxay u badnaan doontaa baarlamaanku in awood badan uusan yeelan doonin maadaama muddaxileedkiisa markaa uu gabagaba sii ahaanayo